kulan wacan wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba joogtaan iyo walba aad maqlaysaan ku soo dhawaada war waxaan taliyo dibadba idinka hayno oo halkan idinku soo gudban doono hadii eeba yiraahdo qodobada warkeena ugu darroona waxaa kamid ah dagaalo lagu halaagsamay oo ka socda gudaha dalka Itoobiya TPLF oo sheegtay inta badan deegaanada axmaarada in ay gacanta ku dhigtay gobolka Waqooyi oo maalmihii ugu dambeysay dagaal xoogan uu ka socday oo TPLF ay sheegtay in gabi ahaanba la wareegtay waana dhul istiraatiiji ah oo maalmihii ugu dambeeyay lagu hoobtay isla markaana dagaalada ugu waaweyn ay ka socdeen TPLF ayaa dhinaca kale waxay sheegtay magaalada Sokeeta oo 24 saac ay ugu dambeeyay ay dagaalo ka socdeen in gabi ahaanba magaaladaasi ay la wareegtay ciidamadooduna ay maamulahayaan halka dawladda federaalkuna ay sheegtay in ciidamadoodu wali ay ku sugan yihiin waxaan dhinaca kale eegi doonaa dhowr kun oo askari oo TPLF ay soo bandhigtay isla markaana ay sheegtay in ka tirsanayeen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya waxayna TPLF ay sheegtay in 24 saac ugu dambeeyay oo kaliya ay qabatay in ka badan 4 kun oo askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Itoobiya رئيسل وزراء أبي أحمد oo ku dhawaaqay xabad joojin degdeg ah hadaba TPLF go'aankeedu muxuu yahay maxaase uga qorshaysan xabad joojinta ay dawladda federaalku ay ku dhawaaqday duqeymo xoogan ayaa iyadana ka socda magaalada Shireere oo xad la leh dalka Eritrea iyadoo maalmihii ugu dambeeyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea ay duqeymo xoogan ka wadeen magaalooyinka waaweyn ee gudaha deegaanka Tigreega ayaa war ka soo saaray duqeymahaasi waxayna sheegeen in ka badan dhowr iyo 10 qof oo rayada inay ku dhinteen duqeymihii 24 saac ugu dambeeyay ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn halkaasi ka fuliyeen xog faahfaahsan ayaana idinka haynaa sheegashooyinka Tigreega iyo sidoo kale diyaaradahaasi haybtooda iyo dhinaca ay ka soo jeedeen ba warkeena ayaa kaga bogan doontaan maamulka deegaanka canfartana waxay codsi la yaab leh u direen maamulka dawlad deegaanka Soomaalida oo ayagana sanadihii ugu dambeeyay dagaal xoogan uu kala dhaxeeyay isla markaana ciidamada canfartu ay xasuuqayeen shacabka galbeedka gobolka City hadaba maamulka deegaanka Soomaalidu ma aqbali doonaan codsiga deegaanka canfarta ay u soo direen maxaase uga qorshaysan dagaalka ka socda deegaanka canfarta iyo midka axmaarada walow la sheegayo madaxweyne Mustafa Cagjar in maalmo ka hor uu diray 2,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada New Police ee dawlad deegaanka Soomaalida qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaa warkeena kaga boganaysan waxaana istuuriyaha igula sugan saaxiibkay wacane oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya waxaana soo dhow aad iyo aad ba mahadsantahay hadii aynu ku bilowno Tigreegu waxay soo bandhigeen in gobolka Waqooyi iyo dhammaanba deegaanadaasi iyo xadka ama wadada istiraatiijiga ee isku xidha magaalada Lalibela iyo magaalada Waqooyi ama Sokeeta aan dhahne in gabi ahaanba ay gacanta ku dhigeen wadadaasi waxa la sheegayaa inay xad la leedahay dalka Suudaan isla markaana ciidamada Suudaan ay u soo tababartay Tigreega iyo wax walba oo agab military iyo dhaqaalaba ay halkaasi uga soo galin kartaa day gacanta ku dhigeen dhinaca kale waxay sheegeen 4 kun oo askari inay gacanta ku dhigeen oo ciidamada militariga dalka Itoobiya ka tirsan bal maxaa ugu dambeeyay sheegashooyinka Tigreega iyo guulaha ay sheegayaan inay ay ka gaareen 24 saac ugu dambeeyay dagaaladii ay la galeen ciidamada militariga dalka Itoobiya iyo kuwa liyu booliska ee deegaanka axmaarada maxaa ka jira aad iyo aad baad mahadsantahay 24 saac u dambeeyayba waxaa dhacay dagaalo waaweyn oo u dhaxeeya dhinacyada kuwaasi oo guulo ay kala sheeganayaan dhinacyadu markii laga reebo dawladda federaalka ee Itoobiya oo iyadu gabi ahaanba aan war ka soo saarin magaalooyinkaasi gacanta ay ku dhigeen ururka TPLF waxa ay ku socdaan xawaare zaa'ida oo ka daran sanadii 2021 dagaalka ka socday dalka Itoobiya oo haatan u muuqdaba in TPLF awood iyo carcar hor leh ay la soo baxayso 48 saac u dambeysay TPLF waxay qabsatay in ka badan 7 magaalo oo ku yaala gudaha deegaanka axmaarada kuwaasi oo gabi ahaanba ah degmooyin waxaana gabi ahaanba ay gacanta ku dhigeen gobolka Waqooyi oo ku yaalo deegaanka labada deegaan xuduudooda waxaadna arki kartaa culayska iyo sidoo kale baaxadda ay soo saareen deegaanka axmaarada ururka TPLF waxaad arki kartaa TPLF guulaha hordhaca ay gaarayaan iyo sidoo kale baldegyada ka socda guud ahaanba deegaanka Tigreega oo dawladda haatan ay ka soo hadhay afqalqaad iyo sidoo kale in ay duqeyso maatida iyo haweenka ku haray deegaanka Tigreega dhanka kaleeto dagaalo aan lagu kala nasanin ayaa iyagana ka socdo dhanka xuduudda deegaanka ee Tigreega iyo sidoo kale Eritrea oo halkaasi ay imaadeen ciidamo militariga dalka Itoobiya ka tirsan iyo waliba ciidamo ka socdo dalka Eritrea oo iyaguna dhabarjabin ku sameeynaya xoogga TPLF dhinacyaduna waxay sheegayaan in halkaasi xasuuq bini'aadanimo uu ka dhacay waxaanow Tigreegu hadday soo bandhigeen wadada istiraatiijiga ee Lalibela iyo isku xidhaysay magaalada Sokeeta ee gobolkaasi ee Waqooyi qaybinaysay
xadna lele dalka Suudaan haddii gabi ahaanba aad sheegtay inay gacanta intooda badan ay ku dhigeen wadadan dheer ee Addis Ababa ee isku xidha Maqale ay soo qabsadeen deegaano badan oo ay ka mid tahay Waldiya iyo sidoo kaleeto degmooyin fara badan ay ka soo qabsadeen bal xaalka sidee kula muuqdaa soo lama dhihi karo deegaankii Axmaarada gabi ahaanba gacantu ka bax dabcan arrintu way u muuqataaba haatan waxaa la arkayay sawirro iyo weliba muuqaallo argagax leh oo laga soo duubay haweenka iyo sidoo kale carruurta yaryar ee Axmaarada markii ay arkeen culayska iyo sidoo kaleeto TPLF waxa ay ku haysa dowladdeegaanka Axmaarada oo gabi ahaanba intiisa badan ay gacanta ku dhigeen haatan Axmaaradu waxay bilowday shacab ilaa iyo dowladdiiba inay hubka qaataan waxaa la arkayay haween iyo carruur yaryar oo ku hubaysan hubka fudud baangadaha iyo sidoo kale tuuriyaha oo ay rabaan inay kula dagaalamaan xoogga TPLF waxaa la arkayay dad caan ah oo ayaguna isku dhiibay xoogga TPLF markii ay waayeen wax difaaco Santiago hawsha ka socota dowladdeegaanka ee Axmaarada iyo canfarta waxaad moodaa inay gebi ahaanba ay gacanta ka baxeen ayadoo ciidamadii dowladda Ethiopia meel ay jaan iyo cirib dhigeen laleeyahay oo ciidamada dowladdu ay haatan intooda badan dagaalkii 24 saac u dambeeyay socday lagu jabiyey TPLF waxay soo bandhigeen hub iyo sidoo kaleeto in ay gebi ahaanba magaalooyinka ay qabsadeen bangiyadoodii iyo sidoo kale haddii taale ay bilaqaysteen waxaa sidoo kaleeto muuqaalada qaar ku jiray 4,000 oo askari in ka badan oo xooga TPLF ay banaanka soo dhigeen ay sheegeen inay yihiin ciidamadii dowladda militariga federaalka Ethiopia oo ayagu si toos ah iskugu dhibaya xooga TPLF markaad fiiriso marka dagaalku u socdo iyo qaabka uu haatan marayo xaaladdu waa ay ka sii daraysaa dowladdana qorshe haatan cad oo u yaallo dagaalkaasi ay ku wajahayso gebi ahaanba ma jiro waxaan ogeyn dagaalkii 2021 markuu socday in markii la soo afjir waayay xoogga TPLF oo ay qabsadeen magaalooyinka Kombolja Deze Gondar iyo sidoo kale magaalooyin aad u tiro badan in gebi ahaanba markii dambe uu furimaha hore dagaalku u tagay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed taasi oo markii dambe wax ka bedeshay jawigii dagaalka ku socday TPLFna ay iskaga baxeen magaalooyinka dhanaa ee dib ay u qabsadeen xaaladdu haatan waxaynu huraynin in Abiy Ahmed iyo sidoo kale maamulkiisaba ay tagi doonaan furimaha hore ee dagaalka waxaa la arkayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda in uu bayaan kala duwan uu soo saarayo ku aadan dagaalka qaabka ku wajihi doonaan iyo sidoo kale in waliba furimaha hore dagaalka ay tagi doonaan sifa ay u dhiirigeliyaan ciidamada militariga dalka Ethiopia oo ayagu ku jabay dagaalka wajigii koobaad iyo waliba wajigii labaad oo haatan socdo oo ay qabsadeen xoogga TPLF in ka badan 3 gobol oo ka tirsan deegaanka Axmaarada waagaag dowladda federaalku waxay sheegtay xabad joojin degdeg ah ayay ku dhawaaqday xilli dagaal baahsan uu ka socdo gudaha dalka Ethiopia waxay sidoo kale xabad joojintani ay ku soo aaday guulo aad u tiro badan oo Tigreegu ay sheeganayaan inay ka gaadheen dagaaladii dhowrkii bari ka socday gudaha deegaanka Axmaarada iyo canfarta waxay soo bandhigeen Tigreegu gobolladan inay qabsadeen degmooyin inay qabsadeen dhulka in badan oo ka mid ah deegaanka Axmaarada iyo sidoo kale canfarta qaybo ka midaba inay haystaan oo ciidamadooda ay hayaan ciidamada ay soo bandhigeen inay gacanta ku dhigeen 10,000 ay hadda sheegeen 4,000 maanta ay soo bandhigeen iyo 6,000 hore ay u shaaciyeen saddexdii maalin ugu horeysay dagaalka ay la galeen ciidamada militariga bal xabad joojintan sidee kula muuqataa maxayse ka bedelaysaa dagaalkan hadda sii faafaya iyo xawaaraha TPLF ay wadaan dabcan TPLF ma u malaynayo gebi ahaanba in ay yeeli doonto xabad joojintan halka dhinaca ee dowladdu ay ku dhawaaqday walow ayaga laftirkooda culays ba'an uu soo wajahayo la xidhiidha in la duqeynayo in la xasuuqayo dadkii maatidaha ee xaggii uga soo tageen waddankooda in sidoo kaleeto marinadii laga xidhay in dawla'aan iyo sidoo kaleeto macluul ay ka dilacday gudaha deegaanka Tigreega laakiin haddanana markii la fiiriyo dagaalkaas uu ka bilowday xabad joojintii hore waxay ka dhaxleen ciidamada militariga dalka Ethiopia oo gebi ahaanba ayagu xasuuqaya shacbiga Tigreega Santiago haddii aan dhanka kala milicsano inteena u gudagelin TPLF waxay ka samayn doonto xabad joojinta waxa ayadana socoto xasuuq lagu hayo dadka Tigreega ee ku dhaqan ama qowmiyadda Tigreega ka soo jeeda ee guud ahaanba ka jooga magaalada Addis Ababa iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka Ethiopia waa la xasuuqaya xabsiga loo taxaabaya lagama hadlinayo hantidooda waa xalaal ayadoo arrintaasi ay socoto oo bahdilkaasi ay socoto dhanka kalena dowladdu ay duqeynayso gobolka Tigreega oo ayagu aan wax dagaal ka jirin haddana ma noqon doonto TPLF in gebi ahaanba ay xabad joojintaasi halka dhinaca ay aqbasho walow ay jiraan cadaadisyo ay saarayaan wadamada reer galbeedka iyo waliba kuwa taageera TPLF-ta oo iyagu ku cadaadinaya inay xabad joojinta aqbalaan sifa iyagu ay u noqonin qaswadayaasha dalka Ethiopia laakiin haddana waxaa jirto markii la fiiriyo xasuuqa loo geysanaya dadkooda haday noqoto kuwa ku dhaqan qowmiyadaha kaleeto iyo haddii ay noqoto kuwa ku joogaba gudaha deegaanka Tigreega
gebi ahaanba ma yeeli doonaan in ay xabad joojin ka aqbalaan dowladda federaalka oo haatan ayadu miciin baday in ay xabad joojin hal dhinaca ku dhawaaqdo. wagaag dhinaca kale deegaanka canfarta waxaa la sheegay inay baaq u tirsadeen dhinaca dowlad deegaanka soomaalida dagaallo lagu hoobtay ayaana ka socday 10kii beri ee hadda dagaalku u socday gudaha deegaanka canfarta in badan oo ka mid a dhulka deegaanka canfarta tigreega ayaa maamulahaya walow buurihii istaraatiijiga ahaa iyo xawaarihii ay ku soo socdeen ciidamada tigreegu aad moodo inay dib u yar laabteen oo deegaanada xadka dhaca ay isku ballaadhinayaan halkaana ay difaac kaga jiraan si ciidamada militarigu aysan halkaa dhabarjabin oo kaga keenin ciidamadooda maaragtay ku sisiqaya deegaanka axmarada bal dagaaladii halkaasi ka socday sidee guulo loo kala gaadhay baaqase maamulka deegaanka canfartu ay direen muxuu ku salaysan yahay santagow waxaan ogeyn tan iyo intii dagaalku u bilowday gebi ahaanba deegaanka canfarta wuxuu ku jiray xaalad aad u adag oo la xidhiidha in xooga TPLF meelaha ay inta badan ka soo gelayaan deegaanka axmaarada inuu yahay kan canfarta oo ayagu aysan jirinba wax hor istaagayo ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo sidoo kaleeto xooga deegaanka canfartu waxay si toos ah isku ballaariyeen deegaanada dhaca xuduudda laakiin gebi ahaanba xooga TDF ayaa dhagaha ku dhuftay waxaana haatan ay u muuqataa in xooga TDF ay isku balaarinayaan guud ahaanba deegaanada dhaca xuduudda haatanna codsiga iyo sidoo kaleeto baaqa ay soo jeediyeen ciidamada canfarta ama maamulka canfarta waxa uu ku salaysan yahay sidii ciidamo dheeraada ay duldeegaanka soomaalida ugu soo diri lahaayeen sifa ay u difaacaan shacbiga deegaanka canfarta oo ayagu sheegay in ay yihiin dad walaala ah islamarkaana soomaalida u dhow waxaana sidoo kaleeto ay duldeegaanka soomaalida ka codsadeen in ay haatan tahay markoodii ayna garab istaagaan ayadoo weliba ay jirtay labada maamul in ay dhex mareen dagaallo u dhexeeya sanadii aynu soo dhaafnay sidoo kaleetana bishii hadda aynu soo dhaafnay ay jireen in ciidamo ka socda deegaanka canfarta ay xasuuqeen dad maatiya oo ku dhaqan galbeedka gobolka city sidoo kaleetana in ka badan 4 degmo oo deegaanka soomaalida ay gacanta ku hayaan dableydii xasuuqa halkaasi ka geysatay walow deegaanka canfartu haatan ay sheegayaan inuu jiro cadow ka weyn ayaga dhaxdooda waxyaabaha dhexmaray waxaa haddana jirto in ay codsi u dirayaan duldeegaanka soomaalida mana garan karo duldeegaanka jawaabta uu ka bixin doono iyadoo weliba ay gacantooda ama deegaanka canfarta gacantooda ay ku maqan yihiin dad aad u tiro badan oo soomaaliyeed oo ay xasuuqeen sidoo kaleetana sida ay sheegtay hay-adda Amnesty International in ay jiraan dad gaaraya 700 oo qof oo ilaa iyo xilligan jaaniyo cirib meelay dhigaan aan la haynin oo ku dhaqnaa galbeedka gobolka city gaar ahaan magaalada Catiito iyo Candhuufto marka santago haddana xaaladdu dalka Ethiopia waa ay ka sii daraysaa marba mar ka dambayso dagaaladu waa ay sii kala qaadanayaan xooga TPLF waxay soo bandhigayaan magaalooyin gobollo iyo weliba maxaabiis ay qabsadeen oo aad u tiro badan dhanka kaleeto bangiyada magaalooyinka ay qabsadeen waa ay boobayaan oo hanti wixii taale gebi ahaanba cagta ayay baranayaan waxaadna moodaa in xooga TDF awoodan iyo sidoo kaleeto weeraradan joogtada ay la soo baxeen inay tahay mid sii adkayn doonto xaaladda ka jirta dalka Ethiopia wagaag sidee kula muuqataa guud ahaan dagaaladan hadda dib u bilowday guulahan la kala gaarayo xabad joojintan lagu dhawaaqay iyo xaaladan ka sii daraysa qayla dhaantan goboladan ololahaya iyo guulahan tigreegu ay sheegayaan markii laga fiiriyo gebi ahaanba dagaalku sidee kula muuqdaa weji noocee ah ayuu bixinaya horta message la yaab leh ayuu dirayaa dagaalka ka socda dalka Ethiopia wuxuu message u dirayaa guud ahaanba cadowga dalka Ethiopia wuxuu sidoo kaleeto bayaaminayaa in xooga TDF ay yihiin awoodda kelita ee dalka Ethiopia ka jirto waxaa arrintaasi ku daliila ciidamadii ugu badnaa oo ka socda dowladda federaalka iyo kuwa gobolada dalka Ethiopia waxa la isku geeyay goobaha ay dagaal ka socdaan dowladdeegaanka Soomaalida ugu yaraa waxa uu diray santago saan ognahayba in ka badan 2,000 oo askari haatan waxaa qorshaysan 3,000 oo kale in la diro ciidamada intaasi dhan ciidamadii dowladda guud ahaanba ciidamada xaggaasi tagay oo hubka haysto ee awoodii iyo lacagihii dowladda haysto wax way qaban laayeen oo way jabin laayeen xooga TDF halka waxa ku daliila in awoodda ay haatan TPLF la soo baxday inay tahay mid u saali karto inay gebi ahaanba ay gacanta ku dhigaan guud ahaan waddanka Ethiopia laakiin xabad joojintan iyo sidoo kaleeto tilaabooyinka dowladdu ay qaadayso ayaa ah iyadana mid dhaawici karta xawaarihii ay ku socdeen xooga TDF dhanka kaleeto waxay leeyihiin khubarada daraasaysa xaaladaha dalka Ethiopia ama falanqaysa siyaasadda dalka Ethiopia waxay leeyihiin xabad joojin kasta oo dowladda federaalka dhinaceeda lagaga dhawaaqo waxay u saalaysaa xooga TDF inay qabsadaan dhul hor leh inay isku ballaariyaan guud ahaan deegaanka axmaarada waxaan ognahay in mas'uuliyiin
iyo sidoo kaleta maayaro magaalo in la toogtay oo xooga TDF ay dad sirdoon ay ku leedahay guud ahaanba magaalooyinka deegaanka Axmaarada, taasi oo u sahlaysa in meel kasta oo dowladdu ay ka jilicsan tahay inay imaan karaan oo ciidamadooda ay ka soo geli karaan. Marka guud ahaan markaad fiiriso xaaladda dalka Ethiopia, weliba Satago iyadoo jirto duqayn loo geysanaya dadka deegaanka Tigreega oo iyadana laftirkeeda jawiga dagaalka qayb ka bedeli karta. Eritrea oo iyadana ciidamo badan kusoo daabulayso deegaanka Tigreega ay la leedahay ama xuduud ay la leedahay. Dhanka kaleta Suudaan oo iyadana maxaa la dhihi jiray ciidamo badan soo dhoobtay xuduudeeda. Guud ahaan xaaladda markaad fiiriso dalka Ethiopia waxa uu muuqdaa mid haatan laga sheekayn doono. daawadayaal dagaalka ka socda dalka Ethiopia ayaa u muuqda midkii ugu dambeeyay oo markaasi ay qayb ka mida guushu ay ku raaci doonto. Ethiopia awoodeedii dhanayd haddii aan dib idin xusuusiyo waxay iskugu geysay la dagaalanka jabhadda Tigreega ama ciidamada Tigreega oo kaliya, waana qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha dega dalka Ethiopia, iyadoo ay u muuqato in Tigreeguna ay mar waliba soo bandhigayaan guulo waaweyn oo ay ka gaaraan dagaalada ciidamada ama dagaalada ay la galaan ciidamada militariga ee dalka Ethiopia iyo kuwa waliba maamul goboleedyada. dhinaca kale waxaysan ujeedkoodu cadayn maamulka dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo maamuladani ay ku looltamahayaan midkii qaban lahaa awoodda ugu sarreysa ee dalka Ethiopia, ayna tahay ujeedka loo dagaalamayo sidii ay labadani qolo ama waa deegaanka Axmaarada iyo sidoo kale deegaanka Tigreega ay ku qaban lahaayeen si xooga kursiga ugu sarreeya dalka Ethiopia, balse Soomaalidu uma cadda oo taasi oo iyadu waxay dhigaha ka furaysatay dagaalada ka socda gudaha dalka Ethiopia. wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa wixii ka soo kordho xaaladda ka taagan dalka Ethiopia ee lagu halaagsamay iyo xogihii ugu dambeeyay ayaad mar walba kaga bogan doontaan hadduu eebba eedmo. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinka tegaynaa amaana Allah.